السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي الصومالية ملكستو دونك جوجتين وولاشين أوح ورسمة إيه مركلة إيه تلادي تلادة أسبوع عنو حندونيا إنان كهالله إن أرين أو أيانتان دان سوشيال ميديا dhex joogtay oo ku dhex wareegaysay oo de muddo badan ba soo jirtay oo marar badan laga hadlay dad kala duwan ka hadleen arintaas oo ah caruurta markii maaragtay iyo waalidku is afgaran waayaan in la yiraahdo waxa la geynayaa dhaqan celis oo inta cunugaagii oo adiga inta istiraahday maarad u weysay inta ka xisay meel adan garanayn dadka jooga waxa ay sameyn karaan waxa ay cunugaaga dhibaatooyinka u geysan karaan oo intaad meesha geysid cunugaagii oo waliba lacag ku bixisid aad uga soo tagaysid walaalayaalo waaridow arintaas iyada ah waa inaad dib uga fiirsatiin waa inaad isweydiisiin marka waalidow ubadkiina markii aad xaalada adag la gashaan oo dhalinyarada xilliga da'da kala guurka la yiraahdo oo aad dhibaatooyin dhexdiina yimaadaan ismaqal la'aan timaado dhalintiyo de inta qofka dhalinyarada ah oo geedka boodo buu tala ka boodaa baa la yiri walaalayaalo waaridow cunugaagi yaraa intaad meel geyso dadadan garanayn u geyso kaga soo tagaysid arintaas dhibaatooyinka ay keentay dhalinyarada inta meesha tagtay dhibaatada kala soo kulantay oo ayagii hadlaya hadda ayaad ka arki kartaan marka tii hore u dhacday way dhacday ee qofkaanan weli samayn oo damacsanow ka waantow oo caruurtaada ha geynin ubadkaaga meel intaad ku xareyso faraxumayn ama kufsi ama dhibaato ama jirdil loo geysto arinta meesha taalo waxay tahay jirdil iyo dhib iyo maaragtay lugoyn iyo iyagoo cirdigoo xataa dhib loo geysto ayagiyo nool oo ka hadlaya dhalinyaradii soo martay meeshaas ayaa sheegaya marka maanta ma aha waxa ubax iska dhahayso ama qof oo ajenda wata uu ka hadlayo meelahaas laakiin dadkii tagay oo ka soo baxay dhalinyaradii ayaa ayagii afkoodii ku hadlaya oo leh aniga meel hebla joogay ana dhibaatada la ii geystay marka arintaas waa in dib loo eego waaridow ilmahaaga hadaad geynayso wadankii oo doonayso inay ama diin ama dhaqan ama wax ku soo bartaan adigu la joog ubadkaaga adigu meesha ay joogaan oo aad leedahay waxba lagu barayaa adigu la joog hadaadan adigu la joogi karin cunugaaga intaad meel ku soo tuurto ha kaga soo waa fahmi karaa hooyo waxaan ahay aniga haysata teenagers dhalinyaro da'aada ilmaha ugu dhib badan yihiin waaridow waxaad ogaatiin ilmuhu intay habeen soo kaceen ilmo dhib badan oonan wax maqlayn maysan noqon ilmuhu waxay soo bilaabataa sheekadan ayagoo yaryar waaridow idinku shaqadiina ha gabinina ilmuhu markay yar yihiin ilmahaaga markuu yar yahay la bilow inaad calaaqaad xiriir wada hadal wada sheekaysi is ogaansho inuu idinka dhaxeeyo asagoo yar ilmaha markaad la soo samaysa calaaqaadkaas markuu soo weynaado oo da'daas dhibka badan wada hadalkii meesha idinkaga soconaya ilmuhu anaa waarid aniga imaqal sheekadaas waa hore laga soo tagay hadda waxay taagan tahay waan ku xushmaynayaa xishmee wadamadan aan joogno I respect you and you respect me taasay yaqaan wadamadan aan joogno ilmo la baray oo iskuuladan geysano ay bareen iyo biicada aan ku dhex noolnahay xushmadu waa laba dhinac baa la baray adiguna xushmee qofkuna ha ku xushmeeyo laakiin waaridkeena Soomaalida waxa nagu qufulan anaa waarid ku ah xushmee ilaahay baa ku yiri xushmee laakiin qof aanan bafahansanayn waaridka ilaahay waxa uu ka rabo ilmuhu markuu taa fahmo ayuu ku xushmeynayaa laakiin ilmo la aaminsiiyay lagu aqriyay lagu shubay iskuul iyo bay'ada ay ku dhex nool yihiin bay'aduna way ka badan tahay xushmadu laba dhan weeyaan la yiri marka waaridow ilmihii waa inaad maskaxdooda aqligooda hanato oo tiraahdo hooyo anna waan ku xushmeyn aabbo anna waan ku xushmeyn adigana xushmee ilaah baa ku yiri laakiin xoog iyo qajajac ma shaqayso xoog qajajac khasab
dagaal handadid maaragtay dil jajuub wadamadan aan joogno kama shaqeeyo waxaa ka shaqeeya raxmad macaan kalgacayl sasabid laaluush ilmahaagood laaluushaysa ka waroodhaysa hooy waxaan hadaa samaysa waxaan ku siina maskaxdooda waa inaad hanato haddaadan maskaxdooda hanan waxaa gaaraysaa xilliga aad inta ku soo kacdid tiraahid alla maxaa igu dhacay ka bacdina aad xaawi caasho ay ku dhahaan meel oo dhaqan celis gee cunugaagii iyagii aad maqashid cunugaagii oo naftaadii ahaa ama gabadhaadii ama wiilkaagii aad safrisid dhibaato la gaarsiiyo noloshooda inta ka harsan ay adiga dacwadaas ku haystaan waaridow fakara ubadkiina bohol ha ku ridinin ayagoo nool